الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. نال الشرف والله عفا عما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبي أربع نفر صراحة ماتيكا يو سودويتا يو دمان أرض الجامعة يا حياة كله أو يوم الجامعة ولي كسيت السنة أدي أربع نفر صراحة حان ما هذا اللي يقولوا أرضها أنتي سواء جرتي أو جيت في عنا فشنا أدي ومحزنين يا أو ما تعلنا waxaan u mahad celinaynaa dhammaan akhyaarta joogta iyo inta kale oo cudurdaar ku maqan oo aan rajaynayna munaasabaad kale in la isugu yimaado. waxaa mahad gaara aan halkan uga celinaynaa xarunta iskaashiga Soomaalida Norway oo Ustaad Khadar uu mas'uul ka yahay. waxaan jeclaan lahaa inaad barataan maadaama uu maaragtay u istaago oo sabab u ahaa run ahaan inaan idinku imaado maanta meeshan oo iyaga aan hadda marti run ahaan u ahaa maasha ka hor. hadda saacadda waxaan marti wahay ururka ardada. aad baan waxaan ugu faraxsanahay Soomaalida waxqabadkeedu in aad usoo ficnaanayo. waqtiga la siiyey waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto 45 daqiiqo. hadday iga dhammaato waan istaajin karaa haddaan halmaamo. wax oo mushkila ahna ma igu noqonaysa yani. marka waqtigiina iska ilaashada adna waan bidacay ka ilaalinaya. marka la fiiriyo tacliin da waxaad tihiin culimaad tihiin yani culimada waa dadka wax kasta ha barteen marka laysu soo ururiyo ay culimo noqonayaan. waxaa arkayta dhulkeena innaga kelimada culimadaas carabiga ka timid marka dadka diinta barta keliya ayaa aada ugu yaqaanaa. maxaa le tacliintii hore ee dalkeena taalay asal waxaa u ahaa diin iyo af carabiga asal u ahaa intuusan iskuulka cusub oo ka yimid dawladihii Yurub ama ka yimid dalalka aan saaxiibada nahay ee kale sida hadda Masaarida oo kaliya intuuna gobolkeena imaanay inta wax ka horeysay culimo marka la yidhaahdo taban sheekha diinta yaqaana laakiin sheekh hadda waa la isa soo galayo kii sayniska bartay iyo takhtarkii yaa isa soo galay oo gabdhaha hadda culimaha fadhiya oo iyaga naftooda dhinacooda ka dadaalayaan. marka sidaasaad kulligiin culimo ku tihiin. waa og tihiin ummadaha waxay ku kala hormareen waxbarasho dhammaantood marka la isku dardaro ummad ka fiican ma jiro. ruux ka fiicanna sidiisa ma jirayaan. ilaahayna saa uguma talagelinayo. ilahay wuxuu ugu talagalay dad siman baa la abuuri. dadkaasna marka la abuuro ayaa waxaa la leeyahay wax qabsada noloshaa lagu sii daynayaa. nolosha marka lagu sii daayo ayay qaarna si sax u shaqaysteen hawl bay qabsadeen. qaarkii kalena sheeko iyo fadhi iyo dagaal bay galeen. saasaa la isku dhaafay marka waxa la isku qiimeeya adduunka waa maxay? waa yaa dhaqaale badan, yaa nabad badan, yaa caafimaad badan. sidaasaa la isku qiimeynayaa. intaasna waxaa keena waxbarashadaa keentay ma wax kaloo keeni kara ma laha. caalamku wuxuu isku raacsan yahay bini aadamkan inuu mas-uul ka yahay koonkan aan joogno. ilaahay isagu u dhiibay. marka wax maal la geliyo xoolo wax la geliyo waxaa ugu muhiimsan insaan in la baro. marka haddii laga rabo ganacsi marka laga sheekeynayo investment ama istifmaar
ama development ama tanmiyo markii afkastaa lagu sheegay laga sheekeynayo waxaa laga sheekeynayaa bini aadamka wixii la gashado ayaa ugu qiimo badan baa leeyahay halkaas kusoo urursanaysaa maxaa jira waa madaxdii kownka dhulkan aan ku noolahay insaanka madax ka ah inta kale isaga ilaahay geedahan xoolaha jooga waxyaalaha wax kasta isaga mas-uulka ah wuxuu isagu dhameeyana way dhamaadeen wuxuu isagu dhaqaalaysana way dhaqaaloobayaan sidaas marka wuxuu subar u yahay uga sarreeya inta kale طبعا dalal badan oo dhulkoodu markaa si caadi loo fiiriyo hadda sida مثلا Japan oo kale aan resource badan oolin yani markaa saa u fiirisa yani biyo badan aan lahayn dhul beera ka bax aan lahayn batrool aan lahayn yani wax weyn oo meesha yaalay ma laha markaas iswarsadeen baa leeyahay waa laga shiray waxaas waa hore maxaan haysanaa ma waxa leeyahay faqiir ma nahay ma yaala faqiir ma lihin oo maxaan nahay qani oo seen qani u nahay laana dad baan leenahay baa leeyahay marka dad ba hadaan leenahay ma waxa dadkaas sameeyaa leeyahay hadda waxay samaystaan cunto aan u baahnayn dhulka in lagu beero waa dhamaatay waqti maxaa kartaa adiga cunto aan u baahnayn dhulka in lagu beeray samaysteen adigana meel kale ka baxaysay baahi ku dili yani saasaa la isu dhaafay markaasaa markii ay dagaal ku jabeen daban dadka banaanka u direen dad badan bay banaanka u direen laakiin kooxdii ugu horreysaa xusaa qisadooda yani 6 ruux u horreysay la diray United States loo diray meeshii markay tageen wixii loo diray bay bedeleen dhalinyaro iska xadhigta loo sheekeeyey wax ka fiican ay arkeen saas oo kale waxay bedeleen wixii loo diray iyo bedeleen way soo laabteen iyagoo wax kale wata yimaadeen oo loo fadhinin bas maxkamaa la saaray 6 waa la dilay maxaa jira dalkii Japan oo dhan ayay duniyeen baa la yidhi ajira waxaa rabaa fiiri ummaddu markay goosato raasamaalkeedu waa maxay xaggee investment geliyeen dal kooxdii ku xigtay oo iyaga lala diray waxaa loo diray Talyaaniga bas kooxdaasi dariiqoodii mayna bedelin markaas waxay warsan jireen mashruuc xoolo in la siiyo marka mishinada ugu waaweyn ayay inta soo iibsadaan oo sayniska ay bartaan sheegaya mishinadii naftoodii bay soo iibsanayaan safaaradaasi markaasay kala furfuri markaasay in la isku celiyo maxay qaadan bilo aakhirkii markaas isku celin way kala fur way isku celin ugu dambaysi markay soo qalin jabiyeen boqorka ayaa shahaado siinaya way diideen maxaa dadkaan baa layidhi ilaa aan mishinada samayna annagu shahaado ma qaadanayna way sameeyeen aakhirkii wayse marka warshadii guuxeedii iyo wixii waxay sameeyeen iyaguya ayaa shahaado qaateen waxaa laga wadaa